Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaynu ku jirnaa barashada maadada physics-ka fasalka 12aad gaar ahaan chapter-ka 5aad ee lagu magacaabo refraction of light. Halka casharada kala socotaan waa channel YouTube-ka Aqoon Kororsi Xisaab. Waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Ustaad Cabdiwahaab Cabdi Maxamed. Maantana waxaan qaadanaynaa insha Allah example-kii 3aad waxaan ku soo guda jirnay casharkeeni ahaa refraction of light gaar ahaan qaybta mirrorings-ka ama muraayadaha. Maantana waxay noo qoran example-ka 3aad waxa uu yahay a boy is running away from a blind mirror. Wiil ayaa ka sii ordayo muraayad siman. At the speed of wuxuuna kaga sii ordayaa xawaare la eg 4 meter per second. At the what rate he is away from his image. Sawirkiisa ilaa intee ayuu ka sii fogaan karaa. Solution. Maadaama wiilku uu orday sawirkan uu ka sii orday wiilka iyo sawirkana jihooyinka lacagsi ay u kala ordeen. Wiilka markuu hal talaabo qaado sawirkana wuxuu qaadayaa 2 talaabo. The boy and his image are running in the opposite direction. Wiilka iyo sawirkaba jihooyinka lacagsi ah ayay u kala ordeen. The speed of the boy with respect to his image. Sawirkiisa markii loo fiiriyo waxay la ekaanaysaa. Sawirkiisa markii loo fiiriyo waxay la ekaanaysaa 2v. waa 2 lagu dhuftay speedka wiilka intuu orday oo 4 meter per second ah marka la isku dhuftana waxa ay soo baxayo 8 meter per second. Example-ka afraad waxay noo qoran a flat mirror is rotated. Muraayad siman ayaa la rogay at a constant angular velocity. Xagal rakaad cayiman ayaa la wareejiyay oo ah 1 revolution per second ayaa la wareejiyay. Revolution per second kan waa halbeeg kale oo ay qaadan karto angular velocity-ga. What is the angular velocity of the reflected ray? Waa maxay xagal rakaadka falaartii soo dhacday? Solution. Omega 1 waxaan haystaa 1 revolution per second. Su'aashan la weydiiyay waxay tahay inaan soo helno omega 2. Intaan soo raadin omega 2 ka hor 1 revolution per second radian marka loo bedelayo intee la eg yahay? 1 revolution per second marka loo bedelo radian qiimaheedu wuxuu noqonayaa 6.28 radian per second. Omega 2 waxa lagu helaa waa 2 lagu dhuftay omega 1 wuxuu la mid yahay 2 lagu dhuftay 1 revolution per second. 1 revolution per second qiimaheedu waxa uu la ekaa 6.28 radians per second. Waxa leedahay soo qaado 2 lagu dhuftay 6.28 radian per second waxa ay soo baxay 12.56 radian per second. Halkaas ayaan ku soo koobayaa casharkay maanta. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.